ciidamada mujaahidiinta ah meel walba joogan lixda gobol ku sugan heegan baa la gelaya buuxa waa amarka dambaysa saraakiisha gudaha ku jirta ee taageersan mujaahidiinta diidaya dulmiga muuse iyo gurubkiisu wadaan heegan buuxa la galayo ciidanku waa amarka dambaysa waa la isarki doonaa ama wadasaab warqad u soo dhiib ama mid liitay u soo dhiib waa la isarki doonaa gudaha la isku arki doonaa haddii alla yidhaaho waana dhiban insha allah bidnillaahi kariim waana gudahana waa ka bilaabi doonaa haddii alla yidhaaho kamana noqon doono 180 kilomitir baan gudaha idinku soo galay waxba tara weyde waa laydin karbaashaya haddii alla yidhaaho gumada darar weyne degaankayga wey awalba maan weeran ciidamada deganna waan ku ogaa daalin baa soo galay nin daalina ceergaaba ka yimi taliyo qaybeed lagu sheegay rag badan ku laayay waddanka isagaan beegsanay isaga ayaan weerarkaa ku beegsanayay weerar habeennimo ahaa goobtu ku jiraa way cayinayd waan kala garanayay awgalkaasi wuxuu u dhacay mid habeennimo ahaa mid dhalaareedna waa isku arki doonaa haddii alla yidhaaho qolyahan leh qabaa'il baa la isdilayaa iyo waxbaa la isdilayaa waa tabahooda tii ceelaf weyn ka dhacday iyagaa waday tahawd ka tirtana iyagaa waday anigaa 3 sannadood dhex fadhiyey 3 sannadoodba waxaan ku qariya guucad laba ciidan baad isku hubaysay mushaharkaad siisay ka jaa muslimka sida dhibaatada ka jaa qodob dhulbaantay isdilaysana waxaan leeyahay waar isfahma ilaahayna ka baqa ashahaadka wadhigiina daadanaya joojiya oo dadka isku kiindiraya annagaa oge ha maqlina ina kaahin iyo musabixi waxay samaynayaan ha maqlina annagaa og inay sii fadhiyaan bay doonayaan inay mashaariic furaan bay doonayaan qolada abtiyadayna waxaan leeyahay idinkuma socono abtiyaday waxaan leeyahay idinkuma socono wallaahi idinkuma socono haddaa ilaahay garanaysaan oo bilaahi idinkuma socono oo tallaahi idinkuma socono oo dooni mayno in qof bini aadami wax gaadhaan laakiin daalimiinta isku diraya beelaha aan horumarka ogolayn dadka doonayn inay cadaalad sameeyaan waa la dagaalamaynaa wallaahi waa la dagaalamaynaa idinka sayid dooni mayno soo baxdaa la leeyahay shacabka leefaysa wixii hore ee laga cabanayay ayaa weli jeegaantii sii wada weliba maatadii iyo carruurtiibaa rasaas lala dhacayaa lala doonanaya arrin xalay ceerigaabo ka dhacday oo aad u fool xun oo ciyaalkii hurdadii laga kiciyey oo dadkii waaweynaa sariirii ka dhaceen ayuu muuse iyo gruubkiisu sameeyeen waxaan is leeyahay haddaad muuse is leedahay hargeysaad ku leedaysaa ceerigaabo khalkhalgeli oo ceerigaabo dagaalgeli waxaan kuu sheegayaa inaanu hargeysana kula joogno ciidanka iyaguna kula joogaan halkan waxaan kala hadlayaa anigu inaan kanabtiga u ahay ee barasaabka gobolka Sanaag waxaan leeyahay abti keena carari doonaba abti la arkay ceerigaabo isugu imanaynaa warkaagii aad baan u dhuuxay habeen hore aad baan u dhageystay yaan abti lagaa waayeen arrinkaa way isugu imanaynaa adiga iyo kuwan dabadhelifka dabada ku wadatid abtoon isugu iman doonaa ceerigaabo bal keena carara innaga maaha waxaan kaloo leeyahay qoladaanu maadeerta nahay waar idinkuma soo socono annagu idinka ee ilaahay ka baqa dad maadeera baanu nahay yaan la isku keen dilin annagu taaridkeedu waa meel cid baanu saynaa ismahayno annagu shacab muusiyo ina kaahin weli isuma haysan maanta waa madaxa dalka say ku yimaadeen baa allah ummaduna way ogtahay balse waxaan leeyahay ummadana isku dhiibay xabadda ee walaalaha dirisa ah ee istiraya hadda joojo weydaan anu waan haynaa britwa iyo birka maalin waan haynaa